iyo murashaxiinta halkan caawa muxuu ahaa lagu soo xisbiga anugu wareejin baan isticmaal lagu soo wareejiyey dhammaantoodba waxa sharaf ii ah inaan ka soo qayb galo aniga si gaaray taabanaysaa sababtoo ah murashaxiinta halkan fadhiya caawa laba ka mid isku kalaas baanu ahayn waxaan jeclahay inuu istaago Professor Ridwaan Maxamed Cismaan hal arko 2005 baanu master degree wada tagnay Kenya PhD buu ka sameeyay Cambridge marka waa heavyweight waa nin aad u culus waa dadkaanu aaminsanahay in isbedelka qayb ka noqon doonaan sida gudoomiyuhu sheegayna isbedelku aqoon buu u baahan yahay iyo waaya aragnimo waxa kale oo ku jira nin kale oo isna PhD ah oo Fuad Yusuf Cismaan isna waxaan jeclahay inuu istaago fiican sababtoo ninna laba kalaas baan ka horeeyay ninna isku kalaas baan ahay waxa jooga Mahdi Umar Sheekh ويانو يدين دومانين ومهد عمر شيخ وخبير دولة هوسة حقا مركا لغا حدلو أرمها دولة هوسة خبير بوكو يهي أرمها هرمارنتا خبير بوكو يهي انتي أنقران ايو لباتك السنة دنبيسيبا وحكو شقين ايو هرمارنتا بلشادة أما هير دقمو أما هير قبل أما هير قران وانا نين أرمها بلشادة خبير كوعا اسناو الآديات بانو سو دوين اياه وحفدية صدح نين اول معان لوها وهالكا كسو جيده ونك فؤاد ليرا iyo أحمد iyo mursal saddexdana macallin baan ha kacaan iyaguna anoo sheeganay ragay sababta dadaal baa iga soo galay bari hore maanta hadaan ku soo tabcinna lama qaatin baan aaminsanay marka xisbiga anigu waxaan soo shaqeeyay 20 sano ka hor waxa kale oo fadhiya rag siyaasiyiin hore ahaa oo ka mid yahay Ali Hussein oo ahaa agaasimi guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha isna waxaan jeclahay wuxuu la tagayaa golaha uma baahna kaliya qof aqoonyahana wuxuu u baahan yahay qof soo bartay maamulka dawladda sababtoo golayaashu waa meelaha sharciga lagu dejiyo qof hadaan fahamsanayn systemka dawladana sharci dejinta ma geli karo marka isna waa ha kaco waa xildhibaan u sharaxan golaha baarlamaanka loo saabeeyo waa nin aad u culus waxa kale oo jira xildhibaano hore oo soo noqonay soo masaxsan marka meesha waa la isku wada jiray waxa aaminsan xisbiga cida loo soo xulay oo amaanta ugu horeysa u jeedinayo chief caaqilada iyo salaadiinta oo runaantii aanu eegin kaliya reernimada laakiin uu eegay tayada iyo dunta taa aad iyo aad u mahadcelinayo odayaasha oo ku baasantiin hal qodob ma raacinaya raggan isku qaar baa iga weyn haygina jimirka sheegay laakiin rag baa iga weyn marka anigu waxaan u ahaa ceelaliyo waxaan ogahay xilka culeyskiisa saddex qodob baan halkan ku daraya koow halkay tagayaan waa sharci dejin weeye qordo baarlamaanka tagaysa sharci dejintuna markii loo codeeyay dastuurkeena 2001 dastuurkaasi awooduu siiyay kala duwan fulinta iyo xeer dejinta iyo cadaaladda awoodii shacabku ay siiyeen 22 ka xildhibaan ee baarlamaanka fadhiya sharciga dejinaya ayay ragani qayb ka noqonayaan ma fududa 4 milyan oo qof bay matalaan codkooda iyo aragtidooda iyo doonistooda marka hawl fudud ma aha gobol u gaar ma aha degmada u gaar ma aha qaranka inay maskaxda ku sii qabtaan oo walwalku maanta ku bilaabmay walwalaan baa horta taasaan u sheegaya labo waxaynu u gudubnay nidaam dimuqraadiyada anu waxaan aaminsanahay meesha iska qabanaysa dimuqraadiyadda iyo reernimadu waa halka caawaan joogno sababtoo reeraha ayaa loo daayay inay qofka u matalaya xisbiyada inay soo xulaan halka markay taagan tahay waa kala guud wixii intaa ka dambeeyo qofka waxa dhaqaya xisbinimada qofka waxa dhaqaya shuruucda golayaashu joogo qofka waxa dhaqaya aragtida uu qaranka ku shaqeynayo ee hadba cidii qaranka hoggaanku yahay ku hoggaaminayso taas dhaqaysa marka waxa la aaminsan caawa laga bilaabo anoo idigu ducaynayna inaad guulaysataan aaminsan inaad guulaysanaysaan waa inaad isku diyaarisaan inaad isbedel gasheen reer ku soo xulay laakiin ku soo xulay inaad ummadda wax u qabato
ummadda wax u tarto mas'uuliyad culus arrinkaasna mas'uuliyad culus laakiin waxaan aaminsan raggani waa rag gartooda soo akhristay say u egyihiin midna ogaada Soomaalidu waxa tiraahdaa habar fadhida lagdin la fudud waa siduu sheegayo alla ma saala yiraahdo ma sharciga la qoro ma siyaasadda saala yiraahdo ma imigay u taalaa way arki doonaana weligeedna adduunka qabyada waxa keena waxa kala badan ummaduhu hantidooda iyo aqoontooda iyo hayaankooda intuu socdo iyo waxa kala badan wax qabsan karaan marka ku soo dhawaada xaqiiqada ku soo dhawaada isbedelka aad ka fikirayseen wada gaari maysaan laakiin inaad inta ugu badan aad karaysaan inaad sameysaan fattaqullaha mastata'tum oo macnaheedu ma hadee yareysa laakiin intaad karayso waxa ku gabagabeynayaa sharaf bay noo tahay dhamaanteen inaynu inagoo isku duuban gobol ahaan qarankii cidii aynu islahayn way hogaamin kartaa waana dhalinyaro inaynu maanta xisbigii kulmiye aynu raahno waa kuwa rag anaga nooga sharaxnaa gobolka aniga ku hadlaya magacayga iyo magaca inta kale maqan waxaan leeyahay ku soo dhawaada anagana wax naga go'aan inta wixii ka dambeeya hanaankii la mariyo xisbinimada hanaankii qarannimada oo ay noqdaan kuwo mustaqbalka aynu raahno waa raggii berigii la soo saaray oo kale talo ma la heli doona insha Allah taala erayarna waan oranayaa dadkii hore noo joogay ma aaminsani inay wada yareysteen laakiin ninba intii dadaaliyay taalkiisu ahaa uu sameeyay waan ugu mahad celinaynaa wixii ka qaldameen Allah ka dhaafo wixii uu hagaagayna Ilaahay ajarkiisa ha siiyo imigana waxa uu taalo qaranka inay ugu shaqeeyaan muxuu ahaa